iyadoo guud ahaanba wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee qaranka Soomaaliland ay ka shaqayso gobolada iyo degmooyinka isla markaana muddooyinka ugu dambeeyay saameyn ballaaran ku lahayd kobcinta iyo waxtarka iyo kor u qaadida dhalinyarada kala duwan ee ku sugan gobolka Togdheer ayaa waxa haddana socda munaasabado kala duwan oo lagu shaacinayo furitaanada dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare ee guud ahaanba qaranka. Tuulada Balihiile oo ka tirsan gobolka Togdheer ayaa waxa ka dhacday munaasabad ballaaran oo bulshada loogu baaqayo in ay ka qayb qaataan waxbarashada, iyadoo tuuladaasina uu ku yaalo dugsi ballaaran oo ay wax ka bartaan guud ahaanba dadka kala duwan ee ku dhaqan tuuladaasi, inkastoo ay dadkaasi yihiin kuwa reer guuraaya. waxbarashaduna ay ku tahay mid ku uguba, hase yeeshee waxaa muuqda ifafaalooyin kala duwan oo kor loogu qaadayo waxbarashada tuuladaasi oo ay garowdeen ka tahay wasaaradda waxbarashadu. munaasabadan dugsigaasi Balihiile ayaa waxaa lagu dhiirigelinayay ardaydii ka baxday imtixaanaadkii hoose dhexe ee shahaadiga ahaa ee Soomaaliland, waxaana ka qayb galay saraakiil silsile oo ka socota wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland kuwaasi oo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay waxbarashadu, iyagoo ugu baaqay guud ahaanba dadka reer guuraaga ee ku dhaqan tuulada Balihiile iyo guud ahaanba gobolka Togdheer inay kaalin muuqata ka qaataan waxbarashada aadaana dugsiyada. كو وينو معلك جوجا وماشي أرتيجي وحفلنا gudoomiyaha tuulada Balihiile iyo ku-xigeenkiisa oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay ballan qaadeen inay bulshada ay meel walba ugu tagi doonaan geed kasta iyo goob kasta, isla markaana ay waalidiinta ku qancin doonaan inay ubadkooda keenaan dugsiyada. in cidii kasta ee qusaynaysa ay nagala qayb qaadato oo wax nagala qabato ayaanu codsanana. macallimiin iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay ballan qaadeen in xilli kastoo ay qaadataba ay kor u qaadi doonaan waxbarashada tuuladan. tuulada Balihiile ayaa waxa ay ka mid tahay tuulooyinka muddooyinka ugu dambeeyay dadka ku dhaqani ay waxbarashada ku soo dhiiranayeen. waa Cabdisataar Sabri, TV-ga qaranka Soomaaliland, Burco.